qofku waa inuu aqoon u yeeshaa shaqada uu qabanayo marka waxa soo afmeermaysaa qolo ku shaqageynta hebelo ishaqagee hebelo idalacsi dalacaadada aqoontaada ku haysa shaqada aqoontaada ku haysa inta markaad aqoon u yeelato waxa soo raacay waxa daacadna noqoto amaana dhowrana aad noqoto dee khalaas dad aqoon u leedahay shaqadii amaanadiina ilaalinayso karti ilaahay ku siiyay salaanka waad fuulaysaa si dhib yar baad fuulaysaa marka dee tababarkan wuxuu daaray inaan doonno cashuur doona cashuur sawriya cashuurtii maanan doonane waxaan doonayaa noqotaan khabiiradii mustaqbalka ee jihayn lahaa ee dejin lahaa xeeladaha lagu sii wanaajinayo cashuur ururinta dakhliga xeeladaha kor loogu qaadayo si markaa aynu isugu filaano oo aynu u noqono markaa institution dawliya oo shaqadii dadku ay ka filayaan ku qabanaya cashuurtii waad ogtihiin marka mashaariicda aynu qabanayno waxa ku qoran waxa lagu qabanaya cashuurtaadii marka tacabkana aad bixisaan wuxuu ka turjumayaa in dadkeenu ay dareemaan in cashuurtooda wax lagu qabanayo marka waxa wax lagu qabanaya waa cashuurtaad soo ururisay waxa lagu dhisay waa cashuurtaad soo ururisay waxa caruurteena wax lagu baraya waa cashuurtaad soo ururisay waxa adiga mushaarka lagu sinay waa cashuurteena soo ururisay waxa adiga waxbarashada lagaga bixinay waa cashuurteena soo ururisay marka tacabkeenu ku jirnaa waa tacab inaga inuu si wanaajinayo aqoonina siinayo mushaharina siinaya magaaladeena marka aynu ku dhisanayno